waxaan leeyahay marka hore odayaasha iyo dhammaan akhyaarta iyo bahda meesha ku jirta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan isleeyahay waqti dambana way tahay waana maalin jimcaha waqtigii waa iska dhow. waxaan rabaa marka hore inaan idinka mahad celiyo dadka gobolka reegada gaar ahaan odayaasha dhaqanka soo dhaweynta lana soo dhaweeyey iyo dhagalugeylka had iyo jeer dhismaha Jubbaland aad uga qayb qaadateen iyo mar walba safarka dheer aad soo galeyseen iyo say dhab idinka ahayd inaad maamulka Jubbaland lugaha u istaagtaan. maamulka kaliya idaan ku daynina guud ahaan aad uga idinka go-an tahay sida aad bal Soomaaliya marxaladda ku jirta inay ka baxdo ay dhabka idinka tahay. aad baan marar badan idinka mahad celinayaa. intaan markaan ka soo gudbo safarkayga oo safar yar ahaa waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa sida wasiirku uu sheegayay inaan imaado ballanqaad hore ay ahayd. ku talagalkayga wuxuu ahaa marka hore inaan baar dheer soo mara kadibna idinkaan idinku dambeeya laakiin waxaan tashi isla qaadanay markaan saraakiishiya kulli la isla arkay in bal dad badan oo wax tabanaya iyo waan isognahayo garbaarey baa hadalkana soo yeedhay iyo maxamed Cabdikaliil baa ka yidhi iyo maxamuud Sayd baa sayid iyo warar badan baa jiray inaan bal meel isugu tagno aan marka hore anagu isa soo buusha bixino soo wada hadalno. taa waxaan rabaa inaan sida uu Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil idiin sheegay aan idiin caddeeyo inaan hadda ku soo dhamaysanay midaas oo xalay dhaleeydaan maalinta maqlay maxamed Cabdikaliil baa war kale yidhi iyo TV-ga wax kale laga sheegay iyo hebel baa ka yidhi oo arrintaas waan soo dhamaysanay haddii la haydha gada dambe oo la isku xuuqiyay iyo meelo kale war laga soo shido la gadaa mucaarad ka jira iyo waxaasaa jiraan ma jiraan dadkii cambihii waxaan ka soo wada tagnay iyadoo reer Jubbaland la wada yahay waxaan Jubbaland ahayn hadda doolo inay joogin baan maray waxaa joogay waa waliyahan deriska nahay inoo soo gudbeen noqonaya iyo dad socota ama laakiin dadka doolo jooga awood reer Jubbaland saaka taama hadeeda waxaa iskale odayaasha dhaqanka. waxaad ogaataan dhul waxaa dhisa dhaqan adag hadduu jiro siyaasiyiinta way hagi karaan way sixi karaan way waxay karaan laakiin laba xaalo hadday siyaasiyiintu dhaqanka qaybiyaan iyagay dib ugu soo noqotaa hadday dhaqanku siyaasadda dhex galaan dhibku iyagu dib ugu soo noqdaan. markaa siyaasiyiintana waxaan leenahay dhaqanka isku toosintooda ma kala qaybinina dhaqankana waxaan leeyahay siyaasadda idinkuna ha kala qaybinina sida aad hadda idinku u soo dhisteen baana asal u ah. taas aad baan idinkaga mahad celinaya. xaqiiqatan waan jeclahay inaan xilli aan ururada bulshada iyo socod dheer gobolka oo dhan ku mari doono aan samayn doono laakiin iyadoo hadda waqtiguna aada noogu yaryahay aada ogtihiin waqti xaalad doorasho iyo waqti aada noogu yarra aan ku jiro ma ii saamixi karaysa inaan hadda muddo badan oo kale sii joogo laakiin waxaan rajaynayaa inaan soona mari doono deegaanada iyo degmooyinka gobolka ka kooban yahayna aan mari doono gobolka weli gacanta cadowga ku jirana insha allah aan ka xoreyn doono. sidaa daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku hammalyeynaya idinku mahad celinayaa soo dhaweynta keliya ma aha sida mar walba dhaganlugeyl kale ee mar kasta oo tala nagaga xidhan tagsmaayo inaan odayaashii gadaal u baahannahay ninkii xataa xaajo lahaa iyo kii cudurdaar lahaa iyo kii nin walba intuu lasoo istiilo ay u imanayeen weliba iyagoon sidaan rabaan aanaan usoo ambabixinayn haddana ay marka labaad soo noqonayaan waa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahad celinayo. aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay jimco wanaagsan. waxaan idiin sheegay midaas inaan maanta waxaan Jubbaland ahayn inayna jirin nimanka asxaabtaana siduu idiin sheegay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil aan soo dhammaysano kiiskooduna uu soo dhan yahay insha allah waqti kale oo aan odayaashana gooni ula kulmi doono deegaanadana mari doonaan soo noqon doonaa. hada wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.